السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي دمان أرديدا قيمها له waxaad ku soo dhawaataan cashirkeena maanta. Cashirkaani waxaan ku qaadan doonaa xarfaha yar ee luqadda Ingiriiska. Hore waxaan u soo baranay xarfaha waaweyn. Dhammaan ardayda waxaan ka codsanayaa marka ay cashirka daabadaan inay fiidiyowga inoo like gareeyaan, commentigeena ay inoogu reebaan wixii fikradooda ah ama wixii cabasho oo ay qabaan. Ku soo dhawaada cashirkeena maanta. Cashirkeena maanta waxaan ku baran doonaa xarfihii hore aan u soo baranay. Xarfihii hore aan u soo baranay waxay ahaayeen xarfaha waaweyn ee luqadda Ingiriiska. Maanta waxaynu baranaynaa xarfaha yaryar ee luqadda Ingiriiska. Wixii aad ka sii weydo waxaan ka codsanayaa inaad isoo weydiiso oo aad commentiga igu soo qorto. Xarafkeena ugu horeeya waa A. waxaad ugu dhawaaqaysaa A. xarafkeena labaad waxaad ugu dhawaaqaysaa B. waxaad ugu dhawaaqaysaa B. xarafkeena saddexaad waxaad ugu dhawaaqaysaa C. xarafkeena saddexaad waxaad ugu dhawaaqaysaa C. xarafkeena afaraad waxaad ugu dhawaaqaysaa D. xarafkeena afaraad waxaad ugu dhawaaqaysaa D. xarafkeena shanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa E. xarafkeena shanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa E. xarafkeena lixaad waxaad ugu dhawaaqaysaa F. xarafkeena lixaad waxaad ugu dhawaaqaysaa F. xarafkeena toddobaad waxaad ugu dhawaaqaysaa G. xarafkeena toddobaad waxaad ugu dhawaaqaysaa G. xarafkeena sideedaad waxaad ugu dhawaaqaysaa H. xarafkeena sideedaad waxaad ugu dhawaaqaysaa H. xarafkeena sagaalaad waxaad ugu dhawaaqaysaa I. xarafkeena sagaalaad waxaad ugu dhawaaqaysaa I. xarafkeena tobanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa J. xarafkeena tobanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa J. xarafkeena koob iyo tobanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa K. xarafkeena koob iyo tobanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa K. xarafkeena laba iyo tobanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa L. xarafkeena laba iyo tobanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa L. xarafkeena saddex iyo tobanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa M. xarafkeena saddex iyo tobanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa M. xarafkeena afar iyo tobanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa N. xarafkeena afar iyo tobanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa N. xarafkeena shan iyo tobanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa O. xarafkeena shan iyo tobanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa O. xarafkeena lix iyo tobanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa P. xarafkeena lix iyo tobanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa P. fiir gaar ah B laba ba ku jirta meeshaan. B-da koowaad waxaa loo B for book loo yaqaanaa. B-da kale waxaad dhihi kartaa B for pen. dhabaaq haddaadan ku kala saari karin waxaad leedahay B for book ama B for pen. marka bacda koowaad waa B for book oo bacda hoos ujeeda ah, bacda kor ujeedana waa B for pen. marka dhabaaq waa lagu kala saari karaa. bacda koowaad waxaad leedahay B, bacda kale waxaad leedahay P. P khafiif baad ka dhigaysaa. marka dadka qaar ma kala saari karaan, laakiin waxaad ku kala saari kartaa B for book, B for pen. waxaan rajaynayaa in la fahmay. xarafkeena toddoba iyo tobanaad waxa uu ina leeyahay Q. xarafkeena toddoba iyo tobanaad waxa uu leeyahay Q. xarafkeena sideed iyo tobanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa R. xarafkeena sideed iyo tobanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa R. xarafkeena sagaal iyo tobanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa S. xarafkeena sagaal iyo tobanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa S. xarafkeena labaatanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa T. waxaad ugu dhawaaqaysaa T. xarafkeena labaatan iyo koowaad waxaad leedahay U. waxaad leedahay U. xarafkeena laba iyo labaatanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa V. xarafkeena laba iyo labaatanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa V. xarafkeena saddex iyo labaatanaad waxaad leedahay W. xarafkeena saddex iyo labaatanaad waxaad leedahay W. xarafkeena afar iyo labaatanaad waxaad leedahay X. waxaad leedahay X. xarafkeena shan iyo labaatanaad waxaad ugu dhawaaqaysaa Y. waxaad ugu dhawaaqaysaa Y. xarafkeena ugu dambeeya oo xarafka labaatan iyo lixaad ah waxaad ugu dhawaaqaysaa Z. waxaad ugu dhawaaqaysaa Z. xarfahan waxaa la yiraahdaa small letters. xarfaha yaryar small letters. xarfaha yaryar. waxaan rajaynayaa inaad fahamteen
cashirkeena. Waxaan rajeynayaa inaad kala fahamteen xarfaha waaweyn ee luqadda Ingiriishka iyo xarfaha yaryar ee luqadda Ingiriishka. Fadlan arday, waxaan idinka codsanayaa inaad fiidiyowgan like gareysaan, aadna commentiga igu soo qortaan inaad fahanteen iyo in kale, iyo wixii aad fahmi weydaan oo cabasho ah oo aad qabtiin, si aan u kala ogaado inta cashirka fahamtay iyo inta aan fahmin. Waad ku mahadsantihiin daawashada cashirkan. Waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan, intaan kaga kulmi doono cashirkeena cashirka xiga insha Allah.